السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaynu joognaa Jazaa'ir ama Algeria. mar walba waxaan ku dadaalaa qisadu wadankay ku socotay inaan video ka turjumayo inoo soo dhigo. haddaba qisadeena aynu guda gallo. qisadani waxay dhacday 2003 inan yaroo ku noolaa qalcadihii qadiimka ahaa ayaa nin boolis oo kasoo horjeeda oo ilaalinaya meel guri nin madax leeyahay ayuu mar walba faraha ku fiiqaa, guriga kor iyo hoos faraha uu ku fiiqaa. ninka booliska ahi ma fahmayo inanka yar inuu iska ciyaarayo moodaya. maalintii dambe inanka yaraa u yimi wuxuu yidhi adeer aabahay wuxuu dilay walaalkay guriguna ku dhexaasay. ninkii booliska ahaa inanka yar maalin walba halkaa ku ciyaaray gurigooda faraha ku fiiqfiiqo. wixii oo dhan markay kusoo dhaceen inanka yar intuu leegyahay ilmo yaroo 9 jira wuxuu yidhi orod gurigiina aad waxaasi ma jiraane. ilmihii yaraa ayaa guriga yimi isagoo ooyaya. guriga wuxuu ugu yimi walaashii waxay ka weyntay ilaa 5 ilaa 4 sano, isaguna waa 9 jir. waxayna odhan karaa iyadoo ama waa 13 ama waa 14 jir. dabadeedna waxay ku tiri maxaa kaa oohiyey, maxaa ku helay? wuxuu yidhi waxaan u sheegay ninka booliska inaga soo horjeeda in aabaheyn uu dilay walaalkeen. ninkiina wuxuu yidhi orod tag. inantii horta markii hore waxay ku tiri war yaa kugu yidhi sheeg, maxaad inoo ka shiftay? laakiin markii dambe waxaa soo gashay geesinimo maadaama ilmihii ka yaraa uu yeeshay geesinimada oo u sheegay booliska wixii meesha ka dhacay. go-aan waxay ku gaadheen iyaduna ninkii booliska ha aado. ninkii booliska aad u tagtay adeer aabi wuxuu dilay walaalkay fadlan caawiya guriguna ku dhexaasay. ninkii booliska ahaa inantani maadaama inan roon tahay wuxuu yidhi inankii yaraa hadeer inoo yimi walaalkaas oo maaha. waxay tiri haa waa walaalkay. wuxuu yidhi orod haddaba isaga u yeedh. labadii caruuraha ayuu booliska kaxeeyey wuxuuna geeyey boolice stationkii ugu dhowaa. wuxuuna yidhi caruurtan waraysta. caruurtii waxay yidhaahdeen maxay tahay maalin dhaweyd ayaa sidii caadadu noo ahayd waxaanu aadnay supermarketka waxaana noo diray aabahayo markii aanu guriga kaga tegaynay waxaa la joogay walaalka iyo cabdiqaadir. wuxuuna nagu yidhi ilaa aan idiin soo noqdo ama aan meesha idinku imaado kama iman kartaan. waxay dhaheen waayahaan nidhi. saacado dhan markii ka soo wareegtay waxay dhaheen waxaanu nimi gurigii waxaa naga furay aabahayo oo naxsan. maxaad u timaadeen? miyaan idinku odhan ha imanina? miyaan idinku odhan ana idiin imanaya? waxay dhahdeen aabe waanu baqnaa habeen bay noqotay markaa sidaa la ajligeed intaa inka badan uma sii maqnaan karno gurigii baanu soo galay. waxay dhaheen aabahayo wuxuu aaday masaajidka sidii caadadu ahayd mana soo noqdo ilaa salaada cisho lasoo tukado. waxay dhaheen guriga markaan nin yar fadhinay baanu walaalkayo yeedhnay cabdiqaadir cidna waa nala hadli weyday. waxay yidhahdeen waxaanu korray dabaqii sare markaanu saa u kornay waxaanu aragnay dhiig daadsan. dhiiggana waxaanu malaynay walaalkayo cabdiqaadir ka yimi. waxay dhaheen aabahayo muddo hadeer 5 sano laga joogo wuxuu naga mamnuuci jiray qol oo odhan jiray ma geli kartaan. isla maalintii uu masaajidka aadayeyna wuxuu nagu yidhi ma geli kartaan qolka. haye baan ku nidhi awal lamaba geli jirin laakiin markaanu dhiiggii aragnay waanu doonay qolkii baanu galay. saan gurigii kale markaan ka weynay qolkii markaan galay qolka wax ka dhex qodan qodka aabahay wuxuu sii saaray yidhi maradii baan saa uga qaadnay mise waa walaalka iyo cabdiqaadir. waxay dhaheen waa iska fadhiisanay guriga anagoo naxsan. maxay tahay aabahayo waa soo noqday isla markiiba qolkiibuu galay. wuxuu dareemay in qolka la galay. gabadhii buu yeedhay yaa galay qolka. ma garanaya aabe anigu ma gelin. waxay tii Sadaam buu yeedhay oo inankii yaraa ah. Sadaam maadaa galay qolka? maya aabe ma gelin. waxay tiri waayo anaa inanka yar lasii ballamay oo ku idhi maxay tahay inaynu meydka walaalkeen aragnay ha u sheegin aabe. waxa dhacday baan ku yidhi inaanu bilowno aabe mee cabdiqaadir waa tegey. xaguu aaday? wuxuu aaday Faransiiska. waana jirta hadalka in mar la yidhi cabdiqaadir Faransiisku aadayaa laakiin dee gurigaanu kaga tagnay. aabe suu u tegay alaabtiisi waa qaato waa tegey. cabdiqaadir dharkiisi waa yaala. inankii yaraa baa wuxuu yidhi waxaan ku idhi aabe ma qof baa bilaa dhar taga? teeda kale dharkii sitay markii aanu tagnay cabdiqaadir waxa uu saaran yahay xadhig isagoo dhiig ku yaalo. aabahayo waxay dhaheen aad buu u cadhooday. wuxuu yidhi haddaad mar dambe i weydiisaan waa idin dilayaa. waanu iska aamusnay halkii baanu iska fadhinay anagoo baqayna.
go-aanna waxaan ku gaadhnay inaan da kuu soo sheegno. Markuu walaalkay soo sheegay baa waxaa igalay maxay tahay dhiiranaan israadna dee sheeg waa ka walaalkaagii yaraaba sheegaya. Maxay ahayd booliska waxay usoo raaceen gurigiiba usoo tilmaameen, gurigii baa la jebiyey, odaygii baa laga soo dhex qaaday. Maxay tahay qolkii bay galeen, isla sidii carruurta sheegayeen meydkii halkaasuu yaalaa. Meydkan waa wiil Cabdiqaadir la yiraahdo 19 jira. Maxay ahayd waad yaabi doontaa, yaan waxaad oran doontaa wiil weyn oo 19 jira soo aabihii u dilay, laakiin qisada iyanan kasii hordhicin, ha degdegin, sug waxyaalo badan baa dambeeya, aad yaabi doontide. Waxaa dhacday in odaygii lasoo qabto, maxay tahay waxaana loogu yeeray dambi baarayaal. Meeshii baa la qoday. Maxay ahayd sidii loo qodaayay waxaa laga helay meyd kale. Meydkan kale waa haweeney uur leh, carruurtii oo misna lagu soo noqday, wax la hooyadiin meeday. Waxay dhaheen muddo 5 sano laga joogo baa hooyadii inoogu dambeysay. Aabahayana wuxuu noo sheegay inay hooyadii tahriibtay oo nacday oo naga tagtay. Laakiin inantii baa waxay tiri anigu waxaan ka shakiyay aabahay, waayo hooyadayo maalintii ugu dambeysay aabahay way isku buuqayeen. Waxa lagu yiri waayahay meydkii hooyadii waa la helay iyo meydkii walaalkiin, hooyadiina uur bay lahayd, carruurtii halkaas ugu dambeysay. Ninkii baa loo yimi. Arrinka la yaab kale waxa weeye ninkani waxa weeye imaam masaajid buu ka adimaa, imaamba ka yahay. Carruurta wuxuu ka tegi jiray salaada subax, wuxuu kusoo noqon jiray duhurkii, waa la qadayn jiray, waa ka tegi jiray ilaa salaada cisha ka bacdi ma soo noqon jirin. Yacni wuxuu ku gaban jiray shaadhka diinta oo yacni shaadh intuu soo xidho dadna maalintii oo dhan buu tujin jiray, gurigiisana qofka wax yar ku sameeyo intuu dilo guriga ku dhexaasi jiray. Subxaan allah. Waxa dhacday in odaygii la wareysto, wuxuu yidhi 5 sano ka hor aniga oo dilayay xaaskayga ayaa waxay arkay wiilkan Cabdiqaadir. Marka Cabdiqaadir wuxuu jiray 14 sano, markana dad la helayana waa 19 jir buu ahaa. Waxa dhacday buu yidhi inuu inankii yaraa ay arko, inankii yaraa wuxuu bilaabay inuu ku yidhaahdo waa ku sheegayaa haddii aan waxaan doonaya aan dii samayn. Waxaan oran karaa dee ma dilin, laakiin shiraaku la ahaa aabihii maadaama ilmo yarna ahaa. Wuxuu yidhi waxaan ku iri waayahay moobal, lacag, dhar, wax allaale waxaad doontid waa ku siinaya, laakiin shardi baan wataa. Wuxuu yidhi waa maxay shardiga aad wadataa? Waxaan ku iri gurigaa kama baxaysid, asxaabtaadana waxaad ku odhanaysaa Faransiiskan aadaya, gurigaa kama baxaysid. Wax yar ka bacdi markaad guriga iskaga jirtidna maxay tahay asxaabtaad waxaad ku odhanaysaa Faransiiskan ka imi. Markaa sidaas ayaynu ku go'aansanayna. Wuxuu yidhi inankii yaraa waa i yeelay maadaama aan wax walba aan ku siinaya. Aan ku iri halkii baan ku biili jiray, halkii baan wax allaale wuxuu doono siin jiray. Yacni maskaxdu bay ka qabsaday. Moobaley, lacagay, qiimamey, maxay tahay cunada tuu doono, dharka tuu doono, laakiin guriga kama bixi jirin. Haddaba waxa dhacday wax yar ma ku ballanay, biliba bil, sanadba sanad isku dhiibaye. Waxa ka soo wareegtay 5 sano. Wiilkan wuxuu noqday 19 jir, dee gurigana kuma hayn karo, nin weyn buu noqday. Wuxuuna bilaabay inuu halkii kasii bilaabo, waa ku sheegayaa iyo maalinta ayaan dilay wiilkayga. Maxay tahay ku sheegayaada iyo sidaa ayaan waxanba ku dilay xaaskayga hore. Markaasaa la yidhi xaaskaagana maxaad ku dishay? Wuxuu yidhi xaaskayga waxaan ku dilay, horta anigu carruurtan ma dhalin, carruurtan odaygana waa soo wada xaday. Subxaan allah, imaamna weeye, waa soo wada xaday. Xaaskayga ayaa waxa dhacday in 5 sano ka hor ay yeelatay uur. Anigu beri hore dhakhaatiirta waa soo maray, waxa la sheegay inaan carruur dhali karin, sidaa la ajligeed ayaan carruurtan u soo xadi jiray oo reeraha uga soo xadi jiray. Cidnana igama sheegi jirinoo imaamka masaajidkan ahaa dadkan ba tujinayay. Waxa dhacday in xaaskayga uur yeelatay, dabadeedna waxaan ku dhanay ayaad uurkan u yeelatay, ilaa anigu waa garanaya inaan yacni waxa dhaline. Maxay tahay waxay ii sheegtay ninkii uurka u yeelay. Aad baan u cadhooday. Maxay ahayd waxaan isiri yacni ninkii dil qayli, waxay tiri haddaad sheegtid maxay tahay sharafteedii meel kaga dhacdid inaad carruurtan oo dhan soo xadaan sheegayaa, ha isku dayin. Sidaa la ajligeed intaan soo qabtay baan gowracay, waan dilay.
sidaas ayaan ku dilay maxay ahayd xaaskaygiina wiilkana dee sidaas ayaan ku dilay. ninkii waa la xukumay, waxa lagu xukumay jeel. marka hore horta waxa lagu xukumay in la dilo la daldalo, laakiin wadanka waa laga mamnuucay in inta noloshiisa ku dhiman uu jeel ku jira ayaa wadaadkii lagu xukumay. wadaad ma odhan karne maxay ahayd laakiin wax yar ka bacdiiba, bilo yar ka bacdiiba odayga jeelkiibu ku dhex dhintay, waayo wuxuu qabay macaantii baa ku kacday, sidaa la asligeed buu dhintay. waxaa dhacday in caruurtii loo geeyo abtiyadood waxa weeye islaantii hooyadood ee soo korsatay ee laakiin aan dhalin odaygan u soo xaday, walaalaheeda loo geeyey. Algeria waxay ka ahayd qiso caana. dariska waxay bilaabeen inay soo booqdaan. maalin maalmaha ka mida ayaa gabadh yar waxay soo booqatay reerkii. inanka yarna aad ayuu ugu ekaa inanka yar Sadaam. hooyadeedii kusoo noqotay. gabadhan 2 sano ka hor, 2 sano yaan oran 9 sano ka hor waxaa la xaday walaalkeed oo 2 sano jira. inanka yarna aad ayuu ugu ekaa. dabadeed waxaa bilowday inay hooyadeed u tagto, hooyo wiilkani aad buu igu egyahay, hooyo wiilkani walaalkay buu u egyahay. yacni islaantiina waa timi iyadoo iska dhigaysa inay soo eegto, waxayna aragtay inuu wiilkani aad caruurteeda ugu egyahay. waxayna sheegtay inan 2 sano jiray, dhowr sano ka hor laga xaday. maxay ahayd booliskiina waa u sheegtay. wiilka waxay tahay calaamad buu caloosha ku lahaa Sadaam. wiilkan Sadaam weeye yar. wiilka horta calaamadii waa laga helay, laakiin sidaa laguma siin, maxkamad baa laysla galay, DNA baa laga qaaday, ilaa ugu dambeyntii uu noqday wiilkii reerkaasi inay dhaleen. halkaa ayay qisadeena ku joogtaa. waan rajeynaya inaad ka hesheen. fadlan channelka subscribe saar, gambaleelka fur, videoga like saar. waad mahadsantihiin.